بسم الله السلام عليكم كسو دوادا يوتيوب اوفيشال اصحابي maanta iyo muuqaal cusub waxaan sameysanaynaa qada bariis ah bariis basmati ayaan sameysanayaa sida aan u sameystay wixii aan ka sameystay daawasho wacan haddii aad channelkeena ku cusub tahay fadlan subscribe kadibna gambaleelka si aysan kuu dhaafin waxa aan soo dhigno haddaad nala joogi jirtana waad ku mahadsan tahay daawashada iyo dhiirigelinta soo dhawaada walaalahayga sharafta leh haddana waxaan gudagelaynaa insha allah qadadeennii qadadii markaan aan u gudagalo waxyaabaha aan ka sameeyey iyo sida aan u sameeyey daawasho wacan waxaan hadda soo diyaarsanayaa digsigii dabka ayaan saaranaa insha allah kadib waxaan rabaa basal hal xabo basal oo soo jira ayaan ku ridayaa basasha waxaan rabaa inay brown ay noqoto basashan bariiska ayaan ku qurxisan rabaa basashaas markaan soo aan brown ka dhigto insha allah ayaan qadadeena u gudagelayaa qof walba qada wuu samaystaa nin walba gurigiisa saaqaan sida uu samaysanayo laakiin waxaa la is dheeryahay qurqurxinta iyo sheeneynta haddana waan soo basasha waan soo gaduudsaday ama brown ayaan kasoo dhigtay waan ka gurayaa insha allah waxaan hadda ku daray basashii biska aan ku karsan lahaa hal xabo basal ayaan haddana soo jarjaray oo kurta saliidii oo ii karkaraysay basashaan wax yara qalaynaa insha allah saa ula socda kadib waxaan ku darsanayaa hilibkaan isticmaalaya ani waa ari geelkaada isticmaal kartaa lo''da chikinka hilib alla hilibkaad jeceshahay laakiin hadda waxaan isticmaalaya waa hilib ari hilibka ayaan daboolaa wax yar si uu noogu karo insha allah waan kusoo noqonayaa saliidii iyo waxaan rabaa hilibka inay isku shiilmadaan iyo basasha hadda waan kusoo noqday basasha iyo hilibka isku shiilmeen waxaan ku daraa yaro soy sauce ayaan ku darsanayaa bariiska ma rabo inaan waxa aan ku daro yaanyo ah yaraan rabaa inaan isku yara karangeeyo intaas kadib waxaan usoo diyaarsanaa carfiskiisaan soo diyaarinayaa hadda si fiican ayay igu shiilmadeen carfiskiisana waa kabsar caleen bay leaf roos cusbada qorfe iyo dhagayare iyo aan isku soo xiyaastay iyo xawaajida isku shiidnaa intaa ayuu ka kooban yahay carfiskiisa bariiskan waxaan kusoo karsanayaa biyo dabka kale ayuu ii saaran yahay wax yaraan rabaa inuu biyo kusoo buro kadib biyahan kasoo miiraa kasaan hagaajisanaa insha allah kan hadda wax biyo ah kuma daraayo
hadda bariiska ayaan ku bilaabay. Waan kala guray hilibka, laba qayb ahaan ayaan ka kala dhigtay. Qaybna salka ayaan u dhigay digsiga. Bariiskeen hadda ku soo shubayaa. bariiska intuu familkaada u yaadaa garanaysaa. Ani hadda waxaan isticmaalayaa 1 kiilo oo bariis ah ama 4 bakeeri oo bakeeriga shaaha ah oo buuxo waaye. hadda waxaan sarsaarayaa waa liin dhanaan aan soo jarjare. liintan caraf ayay siisaa, dhanaan yaroo macaanna way siisaa. bariiskana caraf ayay ka dhigtaa ay ku karto sidaas ay ugu karto. cusbada ayaad ku yaraynaysaa, iyadana saasada dhexda u dhigaysaa. haddana hilibka ayaan ku shubayaa iyo qudaartii aan sii saarayaa. hilibkii dheecaankiisi waxaan ku wareejinayo. kadib haddana bariiskii aan korka sii saaraa qaybtii labaad oo ii dhineed. waxaa hadda aan ku shubayaa waa kalarka 2 nooc ayaan isticmaalayaa. midka gaduudka ah iyo kalarkan kaloo yellow-ga ah ayaan isticmaalayaa. kadib waxaan kor kaga daadinayaa basashii saliidda kusoo qalayoon kaday maxay brown kasoo dhige ayaan kor kaga daadinaa. kadib wax yar ayaan daboolayaa si uu iskugu iiro. waan huurinayaa. haddaad rabto bacda aluumiyada ayaad saari kartaa. hadaad haysanina daboolka ayaad saaraysaa. markaan kusoo noqdona maasha allah waxaan dhex marinaa qaadada. waa qiiq baaba qariyabo maasha allah. markaan soo noqday saas aan walaaqaata qiiqii kastoo iga yara dhammaade. sidaa quruxda badan ayuu ku soo baxay, lagamaba sheekayn karo. macaankiisa iyo caraftiisa qofkii cunaa maa ka sheekayn karaa. haddana saxanka ayaan ku diyaarsanaa insha allah. qadadeena hadda waa inoo diyaar. hadda saxankaas ayaan kusoo diyaarinayaa asxaabey. ku dheh bahalkan faraha ayaa la iskoosanaya, lagamaba sheekayn karo macaankiisa. hadda saxankiiaan soo diyaariyey. kadib waxaan sharaxaadkiisa kale ayaan saaraa insha allah. maasha allah hadda waan soo diyaariyey. haddana waxaan saarayaa jibsigii iyo markaan kasoo saaray jibsigii iyo karootadii iyo maasha allah miiska aan keenay. sidaa quruxda badan ayuu noogu soo baxday qadadeennii. waa walaashin Zainab Qaali oo idin leh like, subscribe, share, la wadaag asxaabtaada. wixii comment hoos noogu reeba. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. jimco wanaagsan, jimco mubaarak dhammaanteena.